Xuseen Nuur Geesay oo warka noo soo diray. kadib duqeyn madaafiica 24 saacadood la soo dhaaftay ku dhacday gudaha isbitaalka Martini oo ay ku nool yihiin ciidamada naafada xoogga dalka Soomaaliya ayaa sii kordhaysa dhimashada iyo dhaawaca ay geysatay madaafiicdaasi hoobiyaasha ah in ka badan ilaa 10 ruux ayaa ku geeriyootay madaafiicdaasi 27 kalena waxa ka soo gaaray dhaawacyo inta badan dadka ku geeriyooday oo kuwa ku dhaawacmay duqeynta madaafiicdan ay ku dhacday gudaha isbitaalka Martini ayaa waxa ay ciidamadii naafada ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo iyagu xubnaha jirkooda ku waayay dagaalkii dhaxmaray Soomaaliya iyo Itoobiya 1977 General Yusuf Xuseen Dhuumaal oo ah taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo TV-ga caalamiga Universal uga warbixiyay khasaaraha ka dhashay halkaasi ayaa daboolka ka qaaday duqeynta madaafiic ku dhacday gudaha isbitaalka Martini in ay tii ugu khasaaraha badneed ee dhimasho iyo dhaawac soo gaara ciidamada naafada ee militaarka halkaasi ku jira waxaana uu Dhuumaal intaasi ku daray in looga fadhiyo xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo dhammaan waxgaradka Soomaaliyeedba in ay caawiyaan caruurta aabahood uu ku geeriyooday madaafiicda duqeynta ah ee halkaasi ka dhacday isagoo sidoo kale tacsi u diray dhammaan qoysaskii ay ka dhisheen askartii halkaasi ku geeriyootay kuwa dhaawacmayna Ilaahay ha noo caafiyo kulli masiibo way waxa kan waa qadar dhacday Ilaahay baan ku mahadinaynaa maxaa yeelay Ilaahay wuxuu kuu keenay shar iyo khayrba isaga qafuur raxiim isaga lagu mahadiyaa haddii dib kugu yimaadana waa lagu mahadini haddii wanaag kugu yimaadana waa lagu mahadini labadaba taas marka hore Ilaahay baan ku mahadinaynaa waa qodobka labaad masiibadan meesha ka dhacday ummadda Soomaaliyeed oo dadka kan karaamadoodii iyo sharaftoodii ay u burbureen waxaan ka codsanaynaa inay u gurmadaan ama dibad ha joogeeno ama dalka gudihiisa ha joogeeno ama dawladda ku meel gaarka ha noqoto saddexdaasba waxaan ka codsanayaa in ummaddan dhibaatadaas ku dhacday in loo gurmado wixii la tari karana in la taro maaha oo kaliya goobaha duqeynta madaafiicda ay ku dhacday isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho waxa ayna sidoo kale duqeymo sida oo kale ah ay ku dhaceen gudaha dekada magaalada Muqdisho maariyaha dekada caalamiga ee magaalada Muqdisho Cabdi Jiino Cali Sow oo aan la xiriiray ayaa asaguna ii xaqiijiyay in hal madfac ku soo dhacay gudaha dekada inkastoo uu sheegay in uusan geysan wax khasaare ah hase yeeshee duqeyntan ka dhacday qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa u muuqata tii ugu khasaaraha badneed ee soo gaartay deegaanadaasi inta la og yahay Xuseen Nuur Geesay